howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan ayay ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee danab ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe. ujeedka howlgalka ayaa ahaa ka hortagga dhagarta ay kooxda nabaddiidka al-shabaab u soo maleegaan shacabka Soomaaliyeed iyo burburinta meelaha ay gabaadka ka dhigtaan. howlgalkan oo ay fulinayeen ururka 7aad guutada 16aad ee kumaandooska xoogga dalka ee danab ayaa waxa ay ka sameeyeen deegaano ay ka mid yihiin Saabuun, Barrow, Madiina Cade, Gaaleef iyo Buurdheere. kumaandooska xoogga dalka ee danab ayaa burburiyay meelo ay ku dhuumaalaysan jireen maleeshiyaadka argagixisada ee shabaabka, waxaana ay qaarijiyeen 8 ka mid ah argagixisada oo uu ku jiray dhagarqabe miino ku aasayay wadada si uu ugu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed ee wadooyinka deegaanada howlgalka laga fuliyay isticmaala. kusimaha taliyaha guutada 16aad ee kumaandooska danab Dhamme Xasan Maxamed Cismaan Xasan Tuure oo la hadlay warbaahinta codka ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee danab gaar ahaan ururka 7aad ay ku guuleysteen inay ka hortagaan dhagartii argagixisada ay u maleegayeen ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Shabeellaha Dhexe ku nool, isagoona xusay in la kordhin doono howlgallada ka dhanka ah argagixisada. ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee kumaandooska xoogga dalka ee danab ayaa inta badan fuliya howlgallo gaar ah kaasi oo ujeedadiisu uu yahay dhabarjabinta cadowga iyo sidoo kale qaarijinta horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab. Cabdifataax Cabduqaadir, warbaahinta codka ciidamada qalabka sida gobolka Shabeellaha Dhexe.